waxa uu ku bilaabanayaa filimka keynta xayawaanada ee ugu weyn Afrika waxaana la barayaa mangoos yar oo lagu magacaabo Bailey waxaana la ciyaaraya saaxiibkiisa ugu wanaagsan kaas lagu magacaabo Socrates saaxiibkiisana waxa uu halibaax isagoo markaas difaaci jiray mangooska Bailey waa uu iska ciyaaraya isagoo dhagaxanta tuurayay balse markiiba mangooska Bailey waxa halkaas ugu timid xaaskiisa aad been u xanaaqday iyadoo ku tiray mangooska Bailey waxaan ku dhahay biyo noodoon adigana meelahan ayaad waqtigaada ku luminaysaa hadda Bailey waxa uu ku qasban yahay inuu raadiyo biyo si uu sii noolaadaan dhaga kale waxa la kaasay mid maroodi dhedeg kaas uu xukumayay dhammaan keyntan oo dhan waxaan u sheegay mangooska Bailey inuu wada roob imaanin oo aanan leerin dad iyo biyo badan oo ku filan mana la gaarin hadda xilligii roobka daawada ma jira xayawaan aad aragtay kaas oo aad u liyaabtay qaabka uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u qaabeeyay haddii aad aragtay nugulwada qaybta hoose inta kadib waxaan aragnaa marka weyn oo ku jiro badda waxaana nala barayaa diiq lagu magacaabo Charles kaas oo lagu xiray miiska cunto karinta cunto kariya ayaa isku dayay inuu jarjaro diiqii Charles laakiin waa uu ka baxsanayaa diiqii Charles isagoo aanan meelna fiirin ayaa wuxuu ka boodiyaa daaqada markabka balse wuxuu kusoo dhacayaa doon ay wateen asxaab xayawaano waxaana halkaas ku sugnaa xayawaano kala duwan dhammaan xayawaanadani waxay ka yimaadeen meelo fogfog aad been ugu xumaadeen ugaarsiga oo iyaga ugaarsanayo bini'aadamka waxayna doonayaan inay tagaan meel aanan lahayn bini'aadamka xayawaanadii mid ka mid ayaa sheegay inay u socdaan keynta Afrika taas ay u sheegeen shimbiraha halkaas ka yimid waxayna u sheegeen shimbirahaas in halkaas loogu noolaan karo si nabad sababtoo ma jiro qof bini'aadam oo halkaas jooga kaasoo dhibaateynaya xayawaanada diiqa Charles ayaa yiri dhammaanteena waan isgarabsanaa oo aan iscaawinaa si aan u gaarno keynta Afrika dhanka kale waxaan aragnaa maroodiga xukumayay keynta waxayna aad ugu warsanayeen qaabkii ay ku badbaadin lahaayeen xayawaanada ku sugan keyntan laakiin mangooska Bailey waxa kaliya u darnaa qoyskiisa sidaas daraadeed waxa uu watay ubbo isagoo biyo raadinayay Bailey waxa uu lahaa fikradda inuu jiro balli ay biyo ku jiraan laakiin mangooska Bailey sidoo markaan u socday waxa uu arkayaa loogisi iyo wayil markaan isdigaalaya maxaa yeelay wuxuu isku digaalayeen biyaha balliga oo halkaas ku jiray iyadoo biyaha ay zaad u yaraayeen shakhsi kastana waxa uu doonayay biyaha inay kaligooda cabaan laakiin inta isdigaalayeen mangooska Bailey ayaa markaana baxay isagoo galay biyaha waxaana bilaabay inuu markaana biyihii soo darsado laakiin wax la bar soo wada fiirinaya loogisidii iyo wayashii Bailey markaana waxa uu dareemay cabsi sidoo kalena wiilkiisii wax u amaanay aabihiisa laakiin inta wiilkii Bailey oo markaana amaanayay hal mar ayaa mangooska Bailey waxa markaana soo ceersanay loogisidii iyo wayashii oo wada jira waxaana bilaabay mangooska Bailey inuu halkaas ka soo cararo ugu baxsado laakiin markaan iyagu ku soo dhaw waxa markaan ka galiya godkii laakiin isla markiiba waxa markaan ka daadanaya biyihii uu soo daray wiilkiisana midaas aad u warwaray wiilkiisa ayaa markaan soo baxay isagoo markaan u sheegay hooyadiisa waxa dhacay hooyadiisana midaas aad bay ugu xanaaqday mangooska Bailey markaan waa uu soo baxay isagoo markaan wato ubadii waxaan markaan u yimid libaaxii saaxiibkiisa waxaan markaan u sheegay arrinta markaan siga ku dhacday isagoo u sheegay inay soo wada raacdeysteen loogis in wayil badan maadaama biyo isku digaaleen oo markaan soo darsaday laakiin saaxiibkiisa libaax ayaa markaas ku dhahaya adiga ayaa gardaran maxaa yeelay waxaad isku dayday biyo ay leeyihiin xayawaanad inaad darsato midaasna waa qalad mana loo baahnayn laakiin mangooska Bailey ayaa ku yiri libaaxii balse uu muujadid inay ubadeeda iga jibiyeen laakiin libaax ayaa ku yiri iga midaas way ku saxnaayeen maadaama aad adiga iga ka amar qaadanin oo aad biyahaas ka darsatay inta kadib mangooska Bailey waa uu soo tagay saaxiibkiisa waxaana bilaabay inuu markaan biyo sii raadiyo laakiin dhammaan xayawaanadii oo ay ka mid ahayn shimbiraha ayaa bilaabay inay soo wada fiiriyaan iyagoo markaas arkay ubada uu isaga wado shimbiraha ayaa bilaabay inay markaa iska foodeeyaan laakiin midaas isaga muusan dareemin waa uuna ka soo dhaqaajinaya waxaana ugu dambeeyay mangooska Bailey imaanaya buuro hoostooda waxaana halkaas yaalay lafa badan markuu midaas arkayna mangooska Bailey waxa uu bilaabay inuu aad u baqo laakiin markii kor fiiray waxa arkay saaxiibkiisa libaaxa kaas oo yimid aad buu midaas ugu farxay saaxiibkiisa ayaa markaas laabta geliyay isagoo markaas ku yiri waxba ha cabsanin aniga ayaa kula jooga laakiin isla markiiba mangooska Bailey waxa halkaas ku soo weeraray shabeel madow markuu shabeelkana madow arkay aad buu ugu baqay isagoo yaryaraaday laakiin isla markiiba waxa halkaas u yimid xayawaankana wax uu ka mid asxaabtii u waday diiqii Charles sidoo kale libaaxii saaxiibkiisa halkaas ayuu joogay diiqii Charlesna dhammaan asxaabtii u wadeen halkaas ayuu la yimid iyagoo markaan ugu dambeeyay soo gaaray keynta Bailey saaxiibkiisa libaaxana wax markaan saaxiib la noqdeen diiqii Charles iyo asxaabtiisa xayawaanada inta kadib habeenkii waxay bilaabeen in markaan dabshitaan oo ay sheekaystaan libaax ayaa markaan wuxuu ka sheekeynaa sheekadiisa isagoo markaas yiri aniga iyo walaalkayga waxaan ahayn kuwa aad isugu dhow laakiin maalmaha ka mid anagoo socno buur hoosteeda waxaana toogtay qof bini'aadam xabadii oo soo ridayna wax markaan ku dhacaysaa walaalkaygana sidaas ayuu ku dhintay waxayna ahayd markii ugu horeysay oo ay bini'aadamka i dulmiyaan anigana midaas aad baan ugu xumaaday ugu dambeyntiina waxaa la gaaray saqdii dhexe ee habeenka dhammaantoodna waa ay wada saaxdeen subaxii iyo markaana soo wada kaceen dhammaantoodii subaxii marka la soo kacay mangooska Bailey ayaa wax uu sheegayaa
in ay halkan u yimaadeen inay biyo soo raadiyaan. Laakiin diiqii Charles ayaa markaan wax uu sheegayaa in laga fiican yahay in dhamaantood isdaba qulqulaan maxaa yeelay xayawaanada qaar ma socon karaan. Intaa kadib Bailey iyo saaxiibkiisa iyo laba xayawaan kale ayaa lagu soo daray, iyagoo markaan ugu dambeyntii yimid biyo xir ay isticmaalayeen bini'aadamka. Halkaas ayayna bini'aadamka ku raaxaysanayeen. Laakiin Bailey iyo saaxiibkiisa waxay markaan gudaha u soo galeen halkaasi, waxayna doonayeen inay halkaan ka helaan biyo ay cabaan, asxaabtoodana halkaan biyo ugu jeexaan. Daanyeer la socday iyagana wax uu bilaabay inuu markaan suud xirto. Libaaxiina halkaas ayuu soo galay. sidoo kale Mangooskii Baileyna wax uu bilaabay inuu markaan biyo cabo. haweeney ka mid ah shaqaalahan aad bay u qaylisay iyadoo markaan bilaabay inay wacdo milkiilaha, waxayna markaan u sheegaysaa in markaan halkaan ay yimaadeen xayawaano. milkiilihina isla markii wax markaan soo qaadanaya qori isagoo doonaya inuu dhammaan toogto xayawaanada. milkiilihina wax uu kusoo ridayaa xabad. Mangooskiina halkaas ayuu ka soo booday isagoo markaan kusoo dhexdhacay baraagta biyaha. laakiin ninkii bini'aadamka ayaa bilaabay in biyihii baraagtu markaan sii daayo. Mangooskii Baileyna wuxuu markaan raacayaa biyihii. asxaabtiisii kalena waxay markaan yimaadeen qolka jiifka, waxaana bilaabay in halkaas ku raaxaystaan oo ay TV iska daawadaan, mana aysan ka qasnayn waqti xadirkaasi. laakiin daanyeerkii ayaa markaan banaanka u soo baxay, wuxuuna bilaabay in dhammaan xayawaanadii uu u sheego in markaan iyaga loo baahan yahay in halkaan si degan ugu noolaadaan, sidoo kalena waa inay ka dhuuntaan milkiila halkaan. intaa kadib waxaan aragnaa Mangooskii Bailey oo iska qabaysanaya oo iska baashaalaya oo uuna iska cadaysanaya waqti xadirkaasi. laakiin daanyeerka ayaa markaan u yimid isagoo ka dambeeyay shaawarka, markaan u keenay asxaabtiisa, wuxuuna bilaabay inuu markaan u qodbeeyo dhammaantood isagoo markaas ku yiri war halkaan la dhaqan maaha duurkii aad ku dhaqmi jirteen, maxaa yeelay halkaan waxaa ku nool bini'aadam, waa inaad nafteena ka taxadartaan oo aad iska ilaalisaan bini'aadamka. intaa kadib ay soo baxeen iyagoo doonaya inay markaan biyo u sii deeyaan keentooda. laakiin intii ay socdeen waxaa markaan arkaya milkiiliya halkaasi xabad ayuuna markaan ka soo riday, waxayna ku dhacaysaa libaaxiina markaan halkaas ayuu ku suuxay. Baileyna waxa uu bilaabay inuu markaan taabto dhammaan badhamada, dhammaan biyihii ayuu markaan ku fasaxay keenta. dhammaantoodana waxay markaan ku raadhaceen biyihii iyagoo markaas u baxay banaanka. laakiin milkiilaha ayaa joojiyey biyaha, gaar ayuu markaan kasoo daba qaatay. markay gaarigii milkiilaha arkeen waxay bilaabeen inay gaarigii ka cararaan. laakiin ugu dambeyntii waxay markaan u tageen diiqii Charles ahaa. diiqii Charles ayaa markaan hor istaagay baabuurkii, mission ayuuna markaan u dhigay. diidiino ayaa markaan ka soo hoos baxay, dhammaan baabuurkiina hawada ayuu galay isagoo gadoomay. Baileyna markaan waxay yimaadeen asxaabtooda, waxaana markaan biyisiinaya dhammaan asxaabtii ooneed. laakiin markaan waxaa ka maqan saaxiibkoodii libaaxa ahaa. intaa kadib Mangooskii Bailey ayaa wax uu sheegayaa in dhammaan xayawaanada ay beri sawd aroori doonaan oo in isugu tagi doonaan biyaha yarka ee balliga oo haray. haddii ay biyahaasi dhammaadaana ma jiri doonaan biyo dambe oo lagu noolaado. dhammaan xayawaanada ayaa bilaabay in markaan u soo arooraan biyahaasi. laakiin Mangooskii Bailey ayaa markaan wax uu keenayaa qorshe ah inay muhiim tahay in dhammaan xayawaanadaasi loo helo biyo ay cabaan, midaasna waa inay ka shaqeeyaan sida ugu dhaqsiyaha badan. intaa kadib xayawaanadii kulligoodii waa ay soo dhaqaajeen si ay markaan u gaaraan biyo xireenkaasi. intaa kadib milkiilihii waxaa markaan soo qaadanaya diyaarad isagoo doonaya inuu baabi'iyo dhammaan xayawaanada ku nool halkaan. laakiin intoosan xayawaanadii baabi'inninba waxaa markaan diyaaradda la fuuliyay daanyeerkii ayaa bilaabay inuu markaan moos afka u geliyo, kadibna gantaalkii ku fasaxo biyo xireenkii uu lahaa ninkan. laakiin dhammaan xayawaanadii waxay markaan yimaadeen biyo xireenkii. maroodigii xukumayay keenta ayaa markaan wax uu sameeyay qorshe ah in dhammaan xayawaanadii markaan isugu tagaan qaabkii ku dumi lahayn biyo xireenadani. waxayna bilaabeen dhammaan xayawaanadii inay markaan hirtaan biyo xireenkaasi si ay markaan u helaan biyo cusub. markaan ayay bilaabeen inay hirtaan biyo xireenkii. laakiin Mangooskii Bailey ayaa markaan wax uu bilaabay inuu tuuro dhagax, maadaama markii si horeba uu ku ciyaari jiray dhagaxaanta. dhagax ayaa markaan wax ku tuurayaa biyo xireenkii isagoo markaas biyo xireenkii geliyay. dhagaxiina wuxuu markaan taabanayaa gantaalkii ku jiray biyo xireenka. gantaalkii ayaa hal mar qarxay, dhammaan biyo xireenka ayaa markaan soo fakaday. biyihiina waxay dhammaan qaadeen xayawaanadii. markay dhammaan xayawaanadii qaadeen biyihiina Mangooskii Bailey wuxuu markaan qabsanayaa tiir aad u weynaa. libaax ayaa markaan la soo qabsaday tiirkii. dhammaan doorkiina wax uu noqday mid barwaaqo ah. dhammaan xayawaanadiina midaas aad bay ugu riyaaqeen. waxaan halkaas ku dhammaanaya filimkii. maanta muuqaalkeena waxa waa mid aad u xiiso badan. intaan muuqaalkaan mid ka xiiso badan kulmi doono, sidaas nabadiino.